وحفلتاnkii kubadda cagta ee qurba joogta oo xamar u soo wareegsaday si wadanka wadana ay isugu balansan garoomo kala duwan oo ku yaala Muqdisho. Kooxda Janaan Daawud oo gudoomiye yahay Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa marti qaaday dhinacyada qurba joogta oo wadamo kala duwan ka yimid. Odayaal dhalanta islaatay ayaa caadiyan inta badan isku wajihi jira dalalka UK, Finland, Sweden iyo Mareykanka, laakiin hadda baratankaasi wuxuu isla yimid xamar. macalinka Janaan Daawud UK Idris Ali Maxamed iyo Cabduqaadir macalin cilmi qooje gudoomiyaha jaaliyadda Finland ana gudoomiyaha ururka Sokos ayaa la hadlay Muqdisho Cable Sports. marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay xaafadeedii inaad dib ugu soo laabto oo nagu soo dhaweeyay gudoomiye Elay caawa waa isdhexgalka bulshada waxaa u badan reer London iyo reer Finland. gudoomiye qoojan uu taagan yahay ciyaar adaga meesha ka socoto kooxda Janaan Daawud aan ku ciyaarayo waa ujeedin marka insha Allah taala kooxda Janaan Daawud oo aniga aan hogaaminayo iyo kooxda Finland oo qooja hogaaminayo aniga iga gaale iyo aqyaarta dhan waa joognaa Axmed Dey Tuuryare dhanada xaafadda u dhaltay Qadaafi iyo ragii qoraac joogtana waa u imaanay iyo Elaayo iyo marka aad u maasantii. Bismillahir Rahmanir Rahim. waa bahda Muqdisho Cable marka dhamaan waa idin salaamaya sidaad ogtihiin macnaha wadanka macnaha inta badan waxaan xiliyadan oo kale ayaan nimanaa dadka baahiyaha goonida qaba isboortiga ayaan wixii karaankeenan ka geysanaa in badanna waa naga aragteen shaashadaha haddii ilaahay insha Allah dibna waan u arkaysaa intaan noolnahay waxaan ka shaqeynaynaa isboortiga dhalinyarada iyo isdhexgalka waxa sharaf ah inaan maanta hadana kulankan qiimaha leh qurba joogta isku yimideen mar walba qurba joogta waxaan ku booriyaa in shakhsiyaad badan ay soo baxaan si macnaha baahida loo kabo hal shakhsi baahida ma kabi karo marka qurba joogtana waxaan ku boorinayaa insha Allah inay baahida nala qaadaan ilaahay baa ajirka siinayo marka ummad baahida ay qabaan aad wax ka qabatid at least waxuun macnaha carruurtii loo qabto dhalinyarada wax loo qabto in isboortiga Soomaaliyeed wax loo qabto waxaan sidoo kale macnaha Faransa oo ka saaysan leh isboortiga Soomaaliyeed duco nooga baahan yahay loo duceeyo in horumarkiisa uu mid taabagal noqdo si sharafna macnaha dad ummadda hogaamiyo sharaf lehna ay ka soo dhacbaan jiilka hadda soo koraa insha Allah. garoonka Janaan Daawud ee ku yaala Yaaqshiida ayuu ka qabsoomay kulankanna waa martiqaad ka yimid kooxda Janaan Daawud ujeedka ayaan ahaa isdhexgal iyo in halkiisa uu ka sii socdo xifaatanka iyo iskuuleenta dhinacyada qurba joogta.